kusoo dhawaada mar kale iyo casharkii shanaad waad salaamantiin dhammaantiin. Muuqaalkan waxaan casharkan idinku tusi doonaa amaba muuqaalkan qaabkee ayaa macmiil loo deymiyaa alaab amaba lacag. Muuqaalkan intaasaan idinku bari doonaa sidee lacag kaasha aad u deymin kartaa. qayb cash transfer systemku leeyahay waa cash transfer. Waxaa laga yaabaa inta badan dukaamada waxay caqabadi ka haysataa qaabkii amaba meheradahoo dhan hawlwadeennadooda ama shaqaalahooda tusaale ahaan oo kale mararka qaar waxay u baahdaan in ay lacag cadaana kasii qaataan meherada. Marka qaabkii ayaad macmiilka ugu qori kartaa amaba qofka ku shaqeynaya hawlwadeennadaada ka mid ah lacag sidee ugu qori kartaa uu kaa qaatay si aad hadhow toolo wixii deyn lagu leeyahay aad u eegto kadibna uga jarto cash cadaan hadduu kaa qaato weyaan. Haddii uu alaab kaaga gato wax amaba alaab uu kaa qaatana sidee alaab aad u deymin kartaa oo hadhow toole markuu deyntii keenana aad uga jari kartaa xisaabtiisii amaba xisaab sidee loogu furaa qof macmiila. Marka waxaan samayn doonaa boos baan tegi doonaa halkan ay ku qoran tahay si aan imika tusaale ahaan oo kale waxaan kow ku fahansiinayaa sidee wax intaad uga iibiso qofka aad magaranaysaa deyn ugu qori kartaa adoo wax ka gadaya. Imika tusaale ahaan oo kale macmiilkii ayaan gelin doonaa halkan contactigiisii. Haddii aad wax deyminayso macmiil lacag waa in aad ugu horeyn lambarkiisa amaba contactigiisa aad diiwaan gashataa. haddii kuu samaysan yahayna inaad soo doorato weyaan. haddii aanu kuu diiwaan gashanayn macmiilka contactigiisu wax lacag ah oo deyn ah ma bixin kartid waayo macmiilkii meel loo raacaaba ma jirto. waayo contact maxaad ku garanaysaa qofkaad wax deymisay by contact baad ku diiwaan gelinaysaa. waayo lambarka macmiilkaad ku garanaysaa iyo magaciisa markaad diiwaan gashato ayuunbaad wax deymin kartaa. Marka taab baad leedahay halkan ay taalo contactigaad soo select garaysanaysaa haddii uu jiro. imika tusaale ahaan oo kale 6184 John Abdi ninkaasaan rabaa inuu xamaahayo lambarkiisan gashaday. halkan haddii deyn lagu leeyahay halkanay soo dhigmaysaa markaaba waad arkaysaa ninkan in lacag ku qoran tahay. haddii deyn aan lagu lahaynna waa kaas oo caadi buu ahaanayaa. saad arkayso water ayaa halkan ku yaala waa productigii aad ka gadaysay. tusaale ahaan water kan baan rabaa inaan ka iibiyo. marka halkan saliidan yar laba jeer haddaad taabato laba jeer buu ku darayaa oo laba goor buu gelinayaa productigii. saad arkayso tirada inta jeereed ka iibisay waa maxay waa laba jeer 3 4 5 halkaas 5 midh baan ka iibinaya ama 10 midh 6 midh baan ka iibiya kasoo qaad. halkan saliidan baad taabanaysaa 6daa midh maxay noqotay $3.60. halkan maxaad arkaysaa haddii tirada wax kaa khaldameen oo 4 aad ka dhigaysaa halkan baad minuskaasi waa hoos u yaree tirada halkanna waa badi. marka wax lacag kuma qorna halkan baad ka arkaysaa wixii deyn lagu leeyahay. marka waxani waa credit waa lacagtani macmiilkan wax lacag lagama hayo waa deyn weeyaan. maxaad samaynaysaa halkaa credit ay ku qoran tahay meesha yare credit ay ku qoran tahay baad select garanaysaa. haddii wax lacaga aanu qofkan macmiilka ahi bixinayn oo aan lacag ba laga hayn quotation hadduu yahayna quotation baad samayn kartaa oo system quotation buu leeyahay qofkii u baahda. marka credit sell weeyaan marka qofkan wax lacaga kama hayo. haddii aan lacagta bar ka hayana maxaad samaynaysaa seelkii ku celi kadibna hadba lacagta intaad ka hayso ayaad gelinaysaa. tusaale ahaan oo kale waxaan kaarka yar baad taabanaysaa kadibna waxaad samaynaysaa add payment matarku lacagta intuu bixinayo uu ku bixiyey waa maxay waa $1 oo kale uu bixiyey. add payment baad leedahay dahab buu $1 ku diray maxaad leedahay safe partial buu ku leeyahay systemkii bar buu lacagtii bixiyey barkii kalena waa la deymiyo muu bixin. halkaasaad haddii bar bixinayo aad ka samaynaysaa cancel baan leeyahay. wax lacagaba haddii aanu bixino deyn ayo lacagtan systemka waxaan oo dhan ay deyn tahayna maxaad samaynaysaa credit sell baad leedahay. credit sell markaa tiraado systemkii wuu deyminaya lacagtii qofkii macmiilkaa sidaasi ay lacagtaasi deyn ahaan ugu dalacmaysaa. halkaa badhankaasa taabanaysaa credit sell kadibna maxaa soo baxaya invoiceka quruxda badan laa kuu soo baxaya. invoicekan halkan wuxuu kugu tusayaa meherada magaceeda. meheradayda magaceedu waa test2 baa la dhahaa oo meherada ana test2 ula baxay ganacsigayga magaciisa. meherada magaceeda taariikhda iyo qofka ma garanaysaa companyga ama meherada lambarkeedii lagala soo xiriirayay ayaa invoiceka shaambad ah baa halkaa ku yaala. halkan saad arkayso customer total due waa maxay waa $3.60. invoicekan macnaha aynu jarnay deynta waa deyn buu ahaa deynta lagu leeyahay waa maxay invoicekan waa $3.60. total paid muxuu bixiyey waa $0 waxba muu bixin. haddii uu bar bixiyo intuu bixiyey baa halkaas soo gelmaysa. invoicekuna wuxuu noqonayaa partial halkaa uu credit ka yahay. marka halkan wixii uu qaatay waa water liter 2 liter 6 xabo 0.6 unitkoodu yahay totalkooduna $3 yahay. total items waa 6 item buu qaatay. line item waa 1 itemku macnaha wuxuu ka wadaa product waliba line item waxa la yiraahdaa tusaale ahaan kale biyo caano wixii kala duwan
hal wax buu isku qaatay oo hal line item buu qaatay. Due invoice status waa due deyn. Marka qaabkaasuu ekaanaya haddaba markaad qofkii macmiilka ahaa aad wax amaahiso ama aad deymiso. Marka maxaad samaynaysaa? Close baad taabanaysaa. Close marka aad taabato qofka macmiilka haddaba lacagtii deynta haydeed ku lahayd waxay gelaysaa contactiska. halkani saliskana waad ku arkaysaa wixii invoice deyn ah. haddii macaamiil lacag ay kaaga maqan tahayna halkan baad ka helaysaa. saliska haddaad tagtana waxaad ka arkaysaa inta deyn kaa maqan. tusaale ahaan oo kale total sales amountkayga waxa weeyaan wixii aan gaday oo dhani waa $6.60 wixii meheradayda ay gaday intii ay jirtay. 2 invoice baa dhacay. total salesku waa laba sel weeyaan. maxaa deyn ku maqan? $3.60. ciday ku maqnaydna waa tan. halkan baad ka helaysaa. contactiska marka aad tagto halkan baad tegaysaa. contactigu wuxuu kuu leeyahay haddaba halkani waa halka deyntana ka masaxayso. marka qofka tusaale ahaan macmiilka ah deyntii lagu lahaa aad rabtay inaad ka masaxdo halkan baad ka masaxaysaa. halkan waxaad qoraysaa tusaale ahaan qof baa kuu yimi lacagtiiba rabaa inaad iska bixiyo ku yiri lambarkiisaad qoraysaa 6184 saasoo kale. lambarkiisiiba markaad wada qorto uu soo baxaya magaciisii iyo contactiga balance due deynta lagu leeyahay. halkaasay soo istaagaysaa. marka halkaa markay taagan tahay waxaad samaynaysaa contactigaad ku duldufanaysaa. haddii aad rabto contactiyada inaad filter garayso oo badan yihiin halkan baad ka filter garanaysaa. waa contactiga due waa kuwa lacagta lagu leeyahay. balance less than macnaha haddii advance balance haddii ay leeyihiin imika show all contact baa inoo taala. marka macmiilkii halkan marka aynu doorano waxa inoo soo baxaya bogani wuxuu kuu sahlayaa halkaa lambarkaad haddaad wacaysid waa wacaysaa. haddaad message u diraysa message baa u diri kartaa. halkani waa deyntaad ku lahayd total due. halkani waxa weeyaan waa total sales waa wixii uu kaa iibsaday oo dhani waa $6.60 buu macmiilkani naga iibsaday. waa macmiil inagu xiran. maxaynu lacag ku leenahay? $3.60 baynu ku leenahay. halkan maxaa ku yaala? total due waa lacagtaad ku leedahay. haddii uu lacagtan bar keeno oo kale tusaale ahaan ama uu wada bixiyo halkaa yar baad taabanaysaa. kaarkaa yar wuxuu ku geynayaa boggii paymentiga amaba lacagta laga bixinayay. lacagta aad ku lahayd iyo contactigii uu select gareeyay automatically baad arkaysaa. halkan waxaad ku arkaysaa payment amount waa lacagta uu bixinayo. tusaale ahaan oo kale ama $3 buu ina siiyay ka soo qaad $3 baan ka qabano 60 senti baaqi bay ku noqonayaan. halka maxaynu sameynaa? hadba lacagta intaad ka qabanaysa dalka gelinaysaa. halkan maxaad sameynaysaa? select payment method baad taabanaysaa. payment methodka uu lacagta ku bixinayo waa maxay? waa sad buu igu diray ma cash buu igu siiyay? muxuu kugu siinayaa lacagta? cash baynu kugu siiyay ka soo qaad ama dahab kugu diray wuxuu kugu diray baad dalka gelinaysaa. halka markaad taagan tahay maxaad leedahay? record paymentigii waad record garaynaysaa. sidaasi ayaad macmiilkii lacagtii kaga qabsatay. maxaa ku haray? balansigii muxuu noqonayaa? recordkay gashay. balansigii imika maxaad ku leedahay? 60 centi. haddaba isla muuqaalkan waxaan ku tusin doonaa sidee macmiilka aynu deyn u siin karnaa amaba lacag kaashu rabaa inuu maanta inaga amaahdo 60 centina waynu ku lahayn sideynu lacag u siinayna deyna. halkan baad tegaysaa cash transferka si aad deyn u siiso. haddaad lacag cadaan u deyna uu kaa qaadanayo cash transferka markaad tagto selecti akoonkaad lacagta uga diraysaad gelinaysa ayaad dooranaysaa halkan. tusaale ahaan cashkii lacag badan igu jirta $6 baa cashka igu jira. cashkan iska dooranayaaba. cashka maadaama lacag badan igu jirto cash akoonkayga markaa maadaama igu jirto $5 baa siinayaa. hadba akoonkay lacagta kugu jirto waa inaad doorataa. marka complete transfer baan marka maxaad leedahay? lacagtaas way kaa baxday $5 baad u dirtay ninka. marka maxay gelaysaa? lacagtii xagee gelaysaa? contactiskii baan tegaynaa. ninkaa lacagtaynu dirnay waa maxay? contactiska tag. kadibna maxaad arkaysaa? markaad refresh garayso macmiilkan lambarkiisa markaad soo geliso waxaad arkaysaa $5.60 inay soo qortay. markaad furto maxaad arkaysaa? total cash transfer lacagaha cadaanka ayuu kaa qaatay. cash transfer due waa $5 baynu dirnay inuu siinay oo lacag cadaan ay naga qaatay. total saleska waxyaaluhu naga iibsaday waa isku $6.60. total paid waxyaaluhu iibsaday intuu lacag ka bixiyay waa maxay? waa $6 buu ka bixiyay. maxaynu ku leenahay? $5.60. 60 senti iyo halkii hore aynu kaga lahayn iyo ma garanaysaa iyo $5 iyo dee $5 baa diintii naga qaatay lacagta cadaanka ugu dirnay. marka sidaasaad u dabagelaysaa macmiilka lacagihii aad ku lahayd iyo waxyaalahaas oo dhan. marka aad iyo aad baa mahadsantihiin. tan iyo inta ku kulmi doona casharkan xiga halkaasaynu ku joojinaa qaabka macmiilka deyn loogu dalacayo iyo sida looga masaxayo waad ila fahanteen intaanan